nebi muuse miyuu ka cabsanayay la kulanka ilaahay markuu soo booqday ama u yimid malakul mawt muuse wuxuu ka mid yahay ambiyada ilaahay ee u soo diray reer bani Israa'iil ilaa noloshiisii yaraanta weynaanta intaba waxa ka buuxa dhacdooyin cajaa'ib leh dhalashadiisii ilaa dhimashadiisii dhacdooyin cajaa'ib leh oo lala yaabo kama marnayn noloshii rasuulkii ilaahay ee muuse nebi muuse ilaahay baa saaciday oo taageeray dhacdooyin kala duwan oo qabsaday lagaba soo bilaabo ilaa uu ahaa ilmo yar oo markii dambana noqday nin kadibna nabi laga dhigay noloshiisu waxay ahayd mid tusaale u ah dulqaadka adkaysiga iyo dadaal kuwaasoo ku dhisan iimaan xoog leh nabiyullaahi muuse wuxuu ahaa dayasho wanaagsan qofka muslimkaana laga doonayo inuu ku daydo sidaas darteed baa rasuulka ilaahay yidhi ilaahay walaalkay muuse ha u naxariisto inta aniga lay dhibay in ka badan ayaa la dhibay kadibna waa sabray nabiyullaahi maxamed wuxuu saxaabadiisa u sheegay maalin maalmaha ka mid ah nebi muuse iyo malakul mawt wixii kala qabsaday wuxuu yiri rasuulka ilaahay wuxuu soo diray muuse calayhi salaatu wasalaam malakul mawt si nafta uga soo saaro yaani nafta muuse malakul mawt waa soo tagay isagoo u socda nabi muuse sida ilaahay amrayba nabi muuse waxa kadis ku noqday nin uu sagaranayn oo qariib ah oo gurigiisa dhex taagan jawaabtii ka timid nabi muuse waxay noqotay markaasi inuu nabar ku dhufto malakul mawt oo markaasi suurad bilaadan leh nabarkaasi wuxuu keenay in ay dhulka ku dhacdo ishii malakul mawt wuxuu ku noqday ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuuna malakul mawt yiri ilaahay waxaad ii dirtay adoon aan rabin geeri maxaad ii amraysaa ilaahayow inaan sameeyo ilaahay wuxuu soo celiyay malakul mawt ishii laga tuuray sidii ay markii hore ahaydba ayaa loogu soo celiyay markale ayaa ilaahay amray inuu ku noqdo nabi muuse markaasna malakul mawt waxa loo sheegay inuu nabi muuse ku yiraahdo gacantaada waxa saartaa dibi oo looda kamid ah marka waxa lagu yiri gacantaadu inta tin ay qabato ama ay taabato oo halkii tinba hal sana lagu xisaabinayo aad leedahay oo sii noolaanaysa yaani kuntin haddii gacantaadu qabato kun sana sii noolaanaysa laakiin waxa ka dambeeya malakul mawt waa soo noqday isagoo fariintaasi wada wuxuu yimid nabi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuuna u sheegay wixii ilaahay u soo sheegay oo fariintu soo dhiibay ah nabi muuse malakul mawt wuxuu weydiiyay oo maxaa igu dhacaya ama maxaa iimaan kara haddii intaasoo sano oo tinta lay barbar dhigo aan noolaado wuxuu yiri intaasi kadib geeri baa ku sugaysa waad dhimanaysaa wuxuu ogaaday markaasi nabi muuse geeridu inay iimaanayso oo lagama maarmaan ay tahay qof geeri ka fakanayana uusan jirin markaas ayuu ilaahay ka baryay inuu ilaahay nafta ka qabto saacada tanba una dhaweeyo dhulka barakaysan ee shaam baytul maqdis nabiyullaahi muuse waa dhintay oo waa geeriyooday waxaana lagu aasay sida rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam wadada dhinaceeda ciidda badan ee casaanka ah wadadaas oo ku taala mantiqada shaam gaar ahaan baytul maqdis wuxuuna rasuulka ilaahay qabriga nabi muuse sii maray habeenkii la dheelmay al-israa wal mi'raaj culumadu waxay ka waramaan xadiiska markay sharaxayaan oo ay faahfaahinayaan arrimo kala duwan laakiin waxay isku raaceen in ilaahay malakul mawt soo diray si uu jarribo ama u imtixaamo nabi muusena malakul mawt wuxuu nabarka ugu dhuftay waxa weeye wuxuu maleynayay inuu ahaa nin tuuga gurigiisa u soo dhacay maadaama muuqaalkiisu ahaa qof caadi ah marka wuxuu ku yiri ma gurigayga soo gashay adoon idan soo qaadan waagaas ama dadka hore caadad waxay u lahaayeen qofka gurigooda soo galay idan la'aan inay isha fujiyaan waana mid rasuulka ilaahay uu sheegay calayhi salaatu wasalaam uu yiri qofka isha ku fiiriya reer gurigood sagoon idan ka qaadan haddii ay isha ka ridaan wax damaana ama maga malahan ilaahay adoomihiisa qofku doonaayo imtixaama ama uu jarriba nabi muuse kamuusa cabsanayn geerida sida ay yiraahdeen ma ahan kuwa badan oo wadada xaqa ka dhacsan oo waxay dhaheen nabi muuse mawdka ayuu ka cabsanayay arinku sidaasi ma ahan muuse waa qof insaan ah laakiin nabi ah qaybka wixii ilaahay u sheegay mooyaane wax kale ma garanayn ilaahayna malakul mawt wuxuu ugu soo diray si uu imtixaamo u jarribo malakul mawt oo markaasi qof suuradiisa wata muuse markuu wuxuu maleynayay qof gurigiisa u soo dhacay oo idan aan ka soo qaadan oo tuuga sidaas uu iskaga difaacay markii dambe uu ogaaday inuu yahay malakul mawtna wuu isku dhiibay isagoo ilaahay darisnimadiisa doortay calayhi salaatu wasalaam